السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناقصن داود اللي لهانتين بمل البعض نجد داود نيسان. هالكني وتلفزيون كعالمي ده يونيفرسال ستوديو سبارك مقالة لندن. خصوصا دواد ورك عالم كون إذن غرياني جو جميلة حسن كرونا. قد بدأ أن ورك إذن كوجا هاي أنا وحاكم إذا. أيضا حلي كان يا رب عني كجيران جودهان دلك سوماليا يا علم الدين كسوجيدا قبل كعين قارهان مقالة دبوه الله وحاي سوق بنقابيان بنبح بالأرن وأي كسوق قيب قالين دت فربضر. dood cilmiyeed looga hadlay doorka waalidiinta Soomaaliyeed kaga aadan caruurtooda si ay uga hakiyaan khilaafaadka isticmaalka dagaalada ayaa ka dhacay xarunta dalka Kenya magaalada Nairobi. madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo kamid ah musharaxiinta dalkaasi Djibouti ayaa maanta la kulmay qaar kamid ah ganacsatada dalkaasi Djibouti si ay markaas u dhageysto fikradahooda. wasiirka warfaafinta iskaarsiinta iyo boostada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdikariin Xasan Jaamac ayaa la kulmay qaar kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Britain asigoo uga warbixiyay xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba tan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya. qodobada caalamka aan idinkaga haynana waxaa kamid ah wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Liibiya oo soo baxsaday dalkan Britain iyo waliba dagaalo ka socda magaalada Raasanaouf. qodobadaas iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan warkaydan kuga haynaa balse qadarinda. Al-Bushra waa shirkadda horumarinta guryaha iyo ganacsiga. Al-Bushra waxay ku hibeynaysaa runka dhigidda riyadaada. Al-Bushra waa dad la aamini karo. ayadoo xilligan ay dalka Soomaaliya ka jiraan abaaro ba'an ayaa culimo diinka ka soo jeeda gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoodle waxa ay soo qaban qaabiyeen banaanbax ballaaran oo roob doon ah. banaanbaxaasna waxa ka soo qayb galay dad fara badan oo halkaasi ku dhaqan. faahfaahinta warkan waxa ay noo hayay wariyaha halkaasi inaga soo warrama Qadar Awil Ismaaciil. xilli abaaro xooggan ay ka jiraan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Cayn oo ay si ba'an abaaruhu u saameeyeen ayaa maanta waxa dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ay sameeyeen isu soo bax roob doona. dadweyne tiro badan oo kamid ah bulshadeynta Buuhoodle ayaa isugu soo baxay garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle halkaas oo la uga bariyeen inuu raxmad degdeg ah u shubo. dadweynaha oo garoonka kubadda cagta ku tukaday laba ragcadood oo salaad sunno ah ayaa waxa halkaasi ay eeba uga bariyeen inuu raxmadkiisa siiyo. qaar kamid ah isimadii ka qayb galay tukashada ayaa halkaasi duco ka soo jeediyay. ilaahu rabbi raxmadda noo deji, ilaahu raxmadda noo deji, ilaahu raxmadda noo deji, ilaahu rabbiyow dad iyo duunyo iyo saqiir iyo ciroole iyo intii aad ummadda ugu naxariisan jirtay baan ugu jirtay ilaahu noo naxariiso. ilaahu intaad ugu naxariisan jirtay bini aadamka baan ugu jirtay iyo xawayaankaba ilaahu noo naxariiso. ilaahu raxmad khayr qabtaanu kaa barin. ilaahu raxmad waasaca oo aan aafalahayn baan ilaahu ku weydiisan. ilaahu dhulkaanu ka ducayna samada ka aqbal. allahumma salli calaa muxamed. subxaana rabbika rabbil cizzati cammaa yasifuuna wa salaamun cala almursaliina والحمد لله رب العالمين. فتقبل إجابة. إله نجد خلقات. إله أولاد نجد نوجبدل. إله أولاد نجد نوجبدل. إله أبارت برواقي الرعب نوجبدل. إله علك مدر قيب أسود دق دق. إله نجسي. إله أذان كبرينا. إله أذان كوس وبمحني. إله عدك أن يعلننا مشت. إله أذان كو علننا. إله دباتوني كان نجد القاد. إله كو أدون كان نجد القاد. إله كو آخرنا إله ونجا إلهي. إله طريق المستقيم كإله هذا وضون الرأسي. سكستبها هاتي روب دون تاني أي مان تسميين dadweynaha ku dhaqan gobolka Cayn ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli abaar li xaallihi ay ka jiraan gobolka. inkastoo gobolku uu la wadaago abaarta inta badan Geeska Afrika haddana gobolka waxa uu dheer biyaha oo si aad ah ugu yar. Qadar Awil Ismaaciil telefishinka Universal magaalada Buuhoodle. madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele kana mid ah musharaxiinta xilligan u tartamaya taladaasi dalkaasi Djibouti ayaa maanta la kulmay qaar kamid ah ganacsatada reer Djibouti si uu u dhageysto fikradahooda. faahfaahinta warkan waxa inoo haya wariyahayaga Bashiir Cusmaan Cateeye. iyadoo ay qayb ka tahay ololaha doorashada madaxtinimo ee Djibouti ka dhici doona 8 bisha Afraad ayaa musharaxa isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UMP mudane Ismaaciil Cumar Geele kulan la qaatay ganacsatada iyo milkiilayaasha shirkadaha yaryar ee Djibouti. kulanka oo ka dhacay hotelka Kambeski ayaa ay ka soo qayb galeen tiro badan oo ganacsato ah
musharaxa isbaahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UMB mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo hadalka qaatay ayaa ka waramay si kooban barnaamijkiisa siyaasadeed ee ku aadan xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee 5 sano ee soo socota waxaana uu sheegay in ay ka mid tahay in la gaarsiiyo guud ahaanba gobolada oo aanay ku koobnaanin caasimadda in hawl fudeedin loo sameeyo dhalinta wadata qorshooyinka shaqo abuurka in qof kasta oo wax bartay loo fududeeyo in uu shaqo galo in la fududeeyo abuuritaanka shaqooyin iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay in la dhimo culayska saaran in la furto shirkado gaar loo leeyahay in la helo koronto raqiis ah iyo waliba in xoog la saaro abaabulka shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe iyo waliba warshadaha kuwaas oo sheegay in dhaqaalaha iyo ganacsiga ay qayb ka qaadan doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa qaar ka mid ah ka qayb qaatayaasha shirkaasi ayaa soo bandhigay su'aalo ay ka mid yihiin in ganacsatada waaweyn suuqa ay ku xidhiidhiyaan waxaan uga jawaabay madaxweynuhu hadalladaasi gargaar ay ka bixinayso ama ay ka hadhayso waxay ay qaadani lahayd isugu jira inay dood cilmiyeed looga hadlayay waalidiinta Soomaaliyeed sidii ay caruurtooda uga badbaadin lahaayeen isticmaalka waxyaabaha qaldan iyo dagaalada ayaa ka dhacay xarunta dalkaasi Kenya magaalada Nairobi faafahinta warkan waxa inoo haya wariyahayaga Cusmaan Fantastic dood cilmiyeedkaani oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SYAO ciwaankiisu ahaa doorka waalidiinta Soomaaliyeed kaga aadan hakinta isticmaalka qaldan ee ubadkooda iyo dagaalada ayaa lagu qabtay hotelka Meridian ee magaalada Nairobi dood cilmiyeedkaani ayaa waxa ka qayb galay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Soomaaliya hooyooyin madax ka socota ururada bulshada rayidka dhalinyaro kor u dhaafisay 160 dhalinyaro dooda ayaa waxa ay ahayd mid aad u xiiso badan waxaana la isku dhaafsaday afkaar wax ku ool ah oo dhammaan ah xalka loo heli karo in waalidiinta ay ka hortagaan isticmaalka qaldan ee ubadkooda iyo talooyin muhiim ah waxaan halkaas lagu lafaguray 6 qodob oo looga dooday kulankaasi wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dawladda kumeer gaarka Soomaaliya mudane Cabdikariin Xasan Jaamac oo la kulmay qaar kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Britain ayaa ka warbixiyay xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba tan dawladda kumeer gaarka Soomaaliya faafahinta warkan waxa inoo haya wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafe mudane Cabdikariin Xasan Faarax oo ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo boostada oo socdaal ku marayay dalkan Britain ayaa la kulmay qaar kamid ah jaaliyada Soomaalida isagoo uga warbixiyay xaaladda dalka uu marayo waxaan rabaa inaan idin sheego in wadankii xaaladiisu ay ka fiican tahay maanta meeshii ay joogtay dhowr bilood ka hor dhinac walba marka laga eego hadii la eego xagga amniga sidoo kale waxa uu ka hadlay in dawladda kumeel gaarka ay howlgallo ka fulisay magaalada Muqdisho waa sida hadalka uu dhigay isla markaana uu si aad ugu dheeraaday xagga amaanka oo barihii la soo dhaafay dagaalo joogto ah ee dawladdu kula jirtay kooxaha mucaaradka ah saaka warqabtaan in muddo aba waxa jiray is-horfadhi fara badan oo aan wax badan dhaqaaqayn ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo tiradoodu ay 10,000 kor u dhaaftay ayaa tababaro badan galay qaar badan laga soo abaabulay ciidamo ama maleeshiyooyin ahaan jiray ama dhalinyaro cusub oo la qoray oo la tababaray oo hadda isu yimid oo xiriir loo dhisay oo la hubeeyay oo qiyaadadoodu ay samaysan tahay oo ay kulligood u soo report gareeyaan taliyaha ciidamada oo madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo waxaan hore u jirin dhanka kalena waxa uu wasiirku uu aad u amaanay jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Bristol oo uu sheegay inay lacago deeqa u direen ciidamada militariga ee ku sugan magaalada Muqdisho kulankan waxa soo qaban qaabiyay xafiiska isku xirka jaaliyada iyo dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliyeed ee uu ku leeyahay dalkan Britain gaar ahaan magaalada London waxaan idinkaga mahad celinaynaa raggeena qaban qaabada waday ka soo qaybgalkiina sharafta leh sida aad nooga ajiibteen iyadoo inta badan Soomaalidu dalabka ayaga uu ka yimid oo dalbaday in gogashan la dhigo wasiirkana waa uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga ah ee uu nasiiyay sida walaalkay Cabdullaahi hore idinku sheegayba waxa barnaamijka marti noogu caawo oo runtii wasiirada inta noogu imaan jiray waxay u badnaan jireen reer London oo aan reer London ahayn laakiin isaga laftigiisu qurbaa ka yimid Cabdikariin Xasan Jaamac markana qodobada caalamka
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya ayaa u soo baxsaday maanta dhankan iyo dalkan Britain. Dhinaca kale waxa ay dagaal ka socdaan wali magaalada Ras Nouaf oo gacan ku haynteeda ay la wareegeen ciidamada taabacsan Kornel Qadaafi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya ayaa maanta soo garay dalkan Britain waxaana la sheegay wasiirku inuu ka yimid dhanka iyo dalka Tunisia oo horey u gaaray maalnimadii shalay ee Arbacada ahayd. jaridda ka soo baxda dalka Tunisia ee magaceeda la yiraahdo Tab News Agency ayaa qortay in wasiirku uu soo maray dalka Tunisia sidii uu ku soo gaar lahaa dalkan Britain. wasiirka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda dalkiisa wuxuuna yiri si nabad loo helo waa in xulafada taageersan Kornel Qadaafi ay ka soo wareegaan dhinaciisa kana taliyaan mustaqbalka dalkooda. kooxaha kacdoonka ee dalka Liibiya ayaa ugu baaqay hogaamiyaha dalka Liibiya Muammar al-Qadaafi inuu dalka uga baxo muddo 7 maalmood ah. dadka shacabka ah ayaa u dhashay dalkaasi Liibiya ayaa ka cabanaya dagaalada ka socda dalka Liibiya waxayna aad uga cabsi qabaan in ay noqdaan dagaaladu kuwa aan markaasi dhamaan sida kuwa ka socda dalka Soomaaliya, Afghanistan iyo Ciraaq. waxaana la arkayaa gawaarida fudud ee sida baan u dagaalama furunta hore ee dagaalka ee Soomaalidu u taqaano cabdibilayaasha oo u hoggaansamaya qaybaha iyo furunta hore ee dagaaladu ay ka socdaan. dhanka kale waxaa wali dagaalo ka socdaan magaalada Ras Nouaf. ciidamada u dagaalamo hogaamiye Qadaafi ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Ras Nouaf oo maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo ku dhexmarayeen kooxaha kacdoonka iyo ciidamada taabacsan Kornel Qadaafi. ciidamada Qadaafi ayaa isku dayay sidoo kale inay la wareegaan magaalada Binjawaad oo dagaal ka socday maalmahan waxayna 200 oo kiiloomitir ka xigtaa dhanka bari magaalada la yiraahdo Sirta. dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay khasaaraha dagaalada ayaa noqday kuwo aan la tiri karin waxaana maalinta ka dambeysay khasaaraha ugu badan ee uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamo. caalamka ayaa ka shirayay isbuucan sidii laga yeeli lahaa mustaqbalka dalka Liibiya oo laga cabsi qabo dagaalada ka socda dalka Liibiya inay ka dhashaan kooxaha mayalka adag ee caalamku u yaqaano Al-Qaacida. daawadayaal intaasina waxaa ku dhan warkii caalamka oo idin naqlinay anigoo Jamiila Xasan Garuun ah aniga iyo farsamada Cabdi Qani waxaan idinkaga tagaynaa tan iyo kulantideena dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.